أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذ فرج شرك. بسم الله الرحمن الرحيم. حدنا وحن أن كفرها يا شركة horta waa kasoo qaybgalayaalka xafladda kasoo qaybgalay waa mahadsantiin. xafladda waxay ku saabsan tahay laba waji. Fayska ugu horeeya waxa weeyaan inaan annagu haddaan degannahay dadka deegaankan degan aan nahay oo Soomaaliyeed Southall ama Eilin Barrowga ama Hayes Hillingdon ama Brentford afartaas ama Harrow ha ahaado adigu ereyadan waxa degan Westiga waxaan u baahannahay inaan mar kasta aan ku dadaalno caruurteena iyo nafteenaba inaan wax u qabanno nation dhan oo waxaan nahay markii la xisaabay UK dadka degan ilaa 1 milyan iyo bar waan noqon karnaa haddana waxa weeyaan qoladii ka dambaysa way soo socdaan caruurta sidii ay u dhalan hayaan dhibaatadana dhaxtaale inaan ka wada hadalno annagoo Soomaali magacaas hiigsanayna taas waa mid talabaad markaan dib ugu noqdo wadankan ka nimid ee Soomaaliyeed problemka yaala dadkeena walaalaha Soomaaliyeed oo shacabka ama dawladaba ha ahaato dhibaatada wali ka jirta inaan u nasteexno u sheegno wixii xaq ah ugu leenahay inta adduunka joogno oo aan la isdhihin yaani dhibaatada ma dhamaa karto ama xal loo heli karo wax kasta xal loo heli karaa marka waxaan u sheegaynaa dadkaas inay dhibaatada dadka shacabka oo walaalaha isla degan dhaxadooda daawo inay dhaxdhigaan ma ahan inay caalir iyo dhibaato kala dhaxdhigaan inaan markaan aan u wada jeedino oo nin walba fikradii uu ka qabo oo sheego oo ku cadeeyo ku xuso maantay oo jimcaha oo bishu 6 ay tahay dareenka iyo dadnimada oo ka qabo wanaaga iyo nabadgelyada waxay tahay wadanka Soomaaliyeed hadda waxaan telefonka microfonka u dhiibayaa ninka la yiraahdo Umar oo noo weyn meesha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسيدة ماشي اسكو تمد أو شرفت له آدي آد بنصور دوينا يا كقريب قال كأكسو قريب قشين إيوه عزمادون عزمين كلا يراهدو موسى دبلة كوما قاعدير إن ورن وحكاه لايو تبكي واجرا لكن أنا قلت بيجي وحكم دي هاي عن سارة يا لو ما دو حكم ده وروحنا أركي جري الدولة ده مركي الدولة دين الدولة أهيد إني يعني المها رجع اللي يرد اللي صدره سكول الله صدره شيب أو هل كان كقاتان جامعة ذي الدنيا ما أنت فريبان أهسنا قاتك وانا استاجي ورسكولاتك جامعة ذي أن أدنو سأن متقانا وحبرش ذني أنا وضنا أن ودن كي نبض أغلابنا ودن كي UK أو مجالية النسيينا آدي أدب أمها السنة هاي أو أسينا أن داعد ولا شقينه أنا وحني ده لها هدانا هاي سومالي أو أن كو متقانا مجاشجنا إنه مسلم أنا نهاي وروانا لسود ويه أنا أقول وين أو ماشي هدر أنت ماشي فريضه ما أنت لقى بالله بري وحنا هذا يا سكول بنا هذا يهدو على يراده مركا وحني ده لها هدانا هاي سومالي بشير أي وحجه وإن مركا أجهرسو إلهي عبسيسا لا تحجليا أو مساجد كأن كحرنا أن تكنا جامعة أن كسب بحنا هدو الله يراد هذا الكي وحن أجب حياة وروانا شرف بني السيئة شرفتي أنت عن قاضنا أنا قد دبلومي وين وذنه أو مثلا كوا قبل الدريد سمينا النقني أن ودن كان أنا قد نبض عن كل عبنه وبالله توفيق ماشي أجب حياة عندنا عمر وحوق بحي si wanaagsan oo dhiiray ku jirta inuu codkiisa u jeediyo haddana Saciid ayaan uga yeerayaa meesha sacad
ما هين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتقات خلينا مرتقالي هي حفلة دينا نكينا مرتقالي هي أورر كوردنبا وهرتو ومهتني ورسول ويننا وارقادني وحصوها لي ماشي دم بينون لي دنتو وحوي ضيع الصومالي هايست باروغي والبهنت ما لو فديست غوري كرا ما هرلو غوري وانا لك اكسدي اسكولada toos ma helo dantii aanu lahayn hadaynu nahay baarogan waa dulmanahay inaynu dawladda u doonano danaheeno ka hadallo inagoo isku duuban baynu xaq u leenahay inaynu aamusno ma aha waxa kale taas waa inaynu doonanaa wixii ina ka maqan waa inay dawladduna inoo taxgelisaa nin soke oo shaqaale ah ma garatay qofkii dan leba inuu geeska ku dhifto inooba fiicna waa inaynu communityyaal samaysanaa sida dadka bakistaamiinta hindida dawladdana waa weydiisanaynaa insha allahu waana ku guulaysanaynaa waa qodobka labaad soomaaliya waa gurigeennii xaalkeeduna ma fiicna meel walba dagaal baa ka shidan meel walba dhib baa ka jirta waxaynu leenahay dabkaa waxa ugu badan oo dadka isku qaribaya waa dadka siyaasiyiinta dadkaynu geysanay ee dooranay baa dadka isku dilaya waa nin kursi doonaya ummadii isku jaray ma garatay waa cambaaraynaynaa dagaalada qaabdarrada ah dumarkii baa la laynayaa carruurtii baa la laynayaa meel walbay ka dhacaysaa magaalo keliya maaha ma garatay waa in la cambaarayaa xaq baynu leenahay waxaynu nahay dad soomaali ah danta dalkeenna iyo tambaaroogeena dhammaan wayna qusaysaa sidaa muuse maanta ugu tallaabsaday oo telefishinada u keenay in nin waliba maalintiisa isu xaqaamo oo aynu soo sharafno ninkii inoo yeedhaba aynu israamnayno xaq u leenahay ma garatay haddii hebel baa wata iyo dambi ku helay ha ku helo malaayin ha ku helo ma heb wey waxaan dhisin keen bay noqdeen waa dalkeena wey ma garatay waxaan idin leeyahay xafladdu ha hirgasho ha socoto nin waliba qaybta hadalka intaanan yani anigu gafay walaalahay baa badanoo sheegaya ma garatay insha allahu billahi alkariim waana inay noqotaa oo aad u aragtaan dantii aynu inagu lahayn isku dambaynu kulligeenna hadday dalkii tahay iyo hadday ingiriiska tahay iyo hadday norway tahay kulli ma garatay qolo waliba waa dan gaara qolo waliba baroyo gaara qolo waliba community gaara communitygii soomaaliyeed waa dayacan yahay dadkeenni waa kala daadsan yahay insha allahu dawladdana waa weydiisanaynaa ina gacan qabato ina dhiiriso inaguna waa inaynu hogaamiyayaal samaysana sidaasaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii iga dhiman walaalahay baa ku daraaya maasha allah waa mahadsan tahay saciid haddana waxaan u dhiibayaa boqorka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa muuse iyo tiimkii ka qayb soo abaabulay arrintan waan arrin loo baahan yahay waxaan kaloo mahadnaq u jeedinayaa inta ka soo qayb gashay qodobka ugu muhiimsan oo laga hadlayaa waa mid danteennii ah waxayna ka kala daadsan sidaynu u urursan lahayn sidaynu uga faa'iidaysan lahayn waqtiga aynu haysano intaba waxaan dadka ku boorinayaa kasoo qayb galay inta maqanba in ay fadhiyadan oo kale badiyaaniin oo kasoo qayb galaan taas waa idag intaatan kale waxaan u soo jeedinayaa meelaha dagaalku ka socdo tii hadda u dambayso gurceel oo kale in si shuruud la-aana loo joojiyo wixii ku dhintayna waxa weeye ilaahay raxmad janno uu siiyo waxa ku dhaawacmana ilaahay u boogadhayo khaasatan fariintan waxaan uga faa'iidaysanayaa dowladda federaalka ah waa inay qayb gacan weyn ka geysataa si dagaalkaasi u istaagi lahaa dadkuna waa inay dhiirigeliyaan in nabaddii dib loo soo celiyo caawa intaasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsan tahay boqorka haddana waxaa weeye bashiir wixii aad ka dhihi lahayd fikradaada ku abbaaran السلام عليكم كل يوم ما سنتين يديكوا سلاما horta meeshan waxa weeye aan ku noolnahay UK annaga haddaan hay Soomaali wax la yiraahdo community management waxana baabiyeeno
waa qabiil oo naga soo yeriya Soomaaliya hadda doorashan soo socoto xataa ereyadan oo ku noolnahay wax la yiraahdo nin Soomaali aan doorayn mal waxaan doorayn waa Hindi iyo Sikh baan dooranayna dhibaatana taas way tanaysta waa taas waa dhibaataas way midda labaadna waxaan dhihi lahaa dhalinyarada meesha joogta hadday leeyihiin wax ka qabasho xag waxbarashada annaga inta wax soo baran karnay dowladii dhexe tii ka horeysay waana soo barnay haddana waxaan joognaa waqtigii oo annaga daadi waa dhaafna annaga laakiin idinka wax meesha caawada u baahan yahay annaga waxaanu qaban karna male above 60 years aan jirnaa aniga Umar Takar iyo kulli waan dhaafna laakiin idinka ya midda saddexaadna waxaa idiin sheegayaa waddanka haddaa ku nooshahay waa inaad ka registersan tahay electionka saa beri xaqaagu u hesho haddii kaleeto waxaa ku heli karta male wasalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum haddana waxa weeyaan waa guuleed ku soo dhawow microfonka السلام عليكم محمود عاوة inay tahay habeen cusub waxa maqli jirnay community hebel baa wax casuumay waxa maqli jirnay hay'ad hebel baa wax casuuntay maanta in shakhsi Soomaaliyeed uu initiative uu qaato oo inta Soomaali ah uu isugu yeero uu yiraahdo danaheena aan ka wada hadalno maxaa naga qaldan waxaa moodaa in wax badan ay soo noqonayaan hor baa ka dhawaajiyay aqoon xumo waddankan weynu nimid markaan aynu imaanayna waxa ahayn sahan waa soo galnay wax knowledge aan ka haysanay Yurub midna ma lahayn waxaan la kulanay dabeecad qalafsan qabow waxaan la kulanay aqoon xumo dadkaygiina waa ka nimid dhulkii aan nimidna kamayna faa'iideysan waa problemka koowaad tan labaad waxaynu nahay Soomaalinimadana ma aha mid la qaato waa mid loo dhasho waa ahaansho waxaynu u baahannahay inaynu fahanno maxaa naga qaldan xagee ka socon la'nahay see wax u qabsannaa see isugu nimaannaa walaalkeen wuxuu ka dhawaajiyey cid wax noo qabata ma laha waa sax cid wax kuu qabanaysa ma laha haddii adiga aada gooban oo aada ehel u ahayn oo aada raadsan oo aada u tanasulin xumaanta waa inaad u tanasulshaa walaalkaaga fiican waa inaad goobataa aad ku gooban qabiil oo aad ku xulataa aqoon waa midda koowaad aniga waxaan ka imid Soomaaliya ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogto waxay u baahan yihiin iftiinkan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay aqoontana waxaa ehel u ah ay dhahaan waxay taallaa macnaha wadamada la dhaho developed nationka wadamada macnaha isha Yurub maanta waxaynu joognaa UK nimayo aan wada qabsanno waa wax fiican aan kala tagno waa wax xun qaabkee wax u qabsanaa aan ka faa'iideysanno qof kale intuu macnaha isha noogu dhow yahay aqoonta waa kow guryaheennii aan ka bilaawno asaaskoodii labo aynu samaysano macnaha community kuwa jira yaa la duduminin kuwa jira aynu u tagno oo aan dhahno waxaas naga maqan waxaasna waa ku fiicantiin waxaasna noo siyaadiye laakiin haddii aan halkan ka fadhiisto oo cabdi uu samaysto community jaamac uu samaysto community heblaay samaysto community cid wax ku qabanaysa ma laha marka aad baa u maasantiin fadhiga maanta halkan isugu timaadeen kulankan uu soo noqon mid caawa kaliya ku eg dadkii soo abaabulay dadka reer South Hall inta aad baa u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsantahay guuleed haddana waxaan u yeerayaa burhaan cali wuu ku xigaa cali waa u yeerayaa burhaan soo isaag بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمان كسو قيب غلاياشا iyo intii casuuntaba shirkani waxa uu ku saabsan yahay waa la wada og yahay waxaan filayaa aan wax qabsano hore ha loo socdo ma kii u horeeyay ma kii u dambeeyay
soomaalidu waa sheekadii jamaal cabdinaasir carab waa heshiisay waxay ku heshiisanaysaa heshiin marka waa sheeko dheer marka waxaan la ilaahay tawfiiqdana waafajiyo hadalna waa intii iga horreysay oo dadka wada yiraahdeen kaasaan la qabaa laakiin waxaan uga faa'iideysanayaa fursadayda qaaliga ah oo baaq nabadeed u jeedinaya dadka ku dagaalamaya magaalada Gurceel oo dhiiga ku daadinaya inay joojiyaan iyo dhammaan qaybaha Soomaaliyeed oo dagaaladu ka socdo waxaan leeyahay Ilaahay ka joojiyo ayakana Ilaahay xaqaha tusiyo dadka masaakiinta ay qaxiyeen inay guryooda ku soo celiyaan waliba culimo iyo caamo intaba waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo waana salaamantiin dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantahay Burhaan haddana waxa weeyaan aadan waxa lagu yiraahdaa meeshan waxaan u maleynayaa inuu hadal badan iga banaaneen waxa la wixii hadal odayaashii iga horeeya soo jeediyay waxaan baaq u dirayaa Soomaalida ay sheeg dagaalada ka socda gobolada dhexe in ay iscafiyaan hal iscafiyo adduunkan waa laga tagaa hal iscafiyo subxaana allah السلام عليكم كاسب آذن هذا الكيسي آد ومهتسين هاي حدنا وحسن منير كسروا اسمع على عيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردنا من وين كل هذا يقول رأيي ما شاء الله Soomaalida إلهي توبة هو فجيو إلهي توفيق الحديقه إلهي أنت تكلمسه دبك أتصو دبك إلهي نقاضو وكمنتي الناس مسنا وحلو بهاي دت كان هندي جامركم كمنتي سمستو أتبوس مسكرتها وحبا تقنا وحبا برتي وحول باتقان وحول باس مسكرتها لكن تاس كوجدنا وحن قبسنا نمله ولقي هلكين مفننا مركن ما يوحنا اللي هاي قلت لا إن هرر الله صعدو وما نوترا وحبا دبا أيجنا حبايب اللي أنا دهين هرا لو صعدوا وحلقة بصدق قول إن شاء الله قول أنا نصير يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرنت هذا وحويان مال في عن أياد والبابا عدك كقاطي وحن كسر علنا يا أو قفك هذا الغباء هرت عمر وكعلنا يا مرلبات أنا جنا حل أري أيان كهلا يا عيد من هذا الكاسو يان أرنت لقديجين وحنت اللي سكوي مت حدنا laga tagahayo waxa fiican hadda sidaan isku nimid iyo sidaan walaalaha u nahay iyo sidaan u dayacanahay laba kala tahay qofka ra'yiga aniga iga maqanaadu ku jira kanoo ku jira waxa weeyaan farkaliya fool ma dhaqdo waxa weeyaan dadku waxay wax ku wada qabsadaan as a company ma ahan qof kaliya waxba ma sameey karo so wax gooni qof loogu riixayo ama qof loogu riixayo male waxa weeyaan toddoba qof oo aan iska soo saarna dadkeenan oo noo doodo caruurteena iyo dadkeena iyo wixii dawlad aan uga baahanahay ayaa nagu filan waxaan kala soo bixi karnaa toddoba kale oo meeshan la kala qaybsanayo la kala qobahayo nin walbaba nin dhibaato ku haysato hadduu jarjarto hadduu faa'iido ka helayo oo faa'iidada wadanku leeyahay oo soo saar la waxbay ahaaleen ama uu is ilaalinayo soonihiisa iyo wixiisa ilaalinayo ayada laftirkeeda annaku cadkeeni ama nolosheeni ama safinkeeni wadankaas waa qof walba runta la isku sheegooya meel kale halkaan aan ku leenahay safe halkaan waxa weeyaan waxaan ugu nimid nabadgelyadii waa ka helnay oo hadda waxaan joognaa cunuga yarka oo asagoo hal jira inta la keenay maanta meeqo maraa 18 ama 20 ama 25 so ilmay sii dhaleen seefin kale oo haystaan aniga iga bilow maca kan dhalay ko sii dhalay seefin kale oo ay wadankan ku leeyihiin male waa xaggaas waxa noo yaala taas ayada laftirkeeda inay erga u dirsano maalin kasta laba wiil inay isku kaana bedelaan ama dagaal ama rafaas nagu dhaliyaan annaka isku keensanay waayo kan banaanka wax badan oo wax la qaybsan kara war halkaan wax qaybsan weyno wadankan multiculture-ka oo cid kasta xamaalinayso socoto oo dantooda u kala hayaan annaku xabad naloo ugu arsanaya
aan iska dhaafno oo hadalka codka kii markaas waqti haysta codka sidii ha u fuliyo codkeenu inuu nagu soo noqdo annaka dhexdeena aan waa laga fiican yahay hadalka yaana ku sii dheeraan hadda waxaan u dhiibayaa muumin adiga ayaan ku dhiibayaa muumin welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وحي أو اللي هلا هراء الله هاي أنا مد أن قدر صنايع كل إنه واحد قبضه في عن تاي لكن واحد في عن اللي يسكتوا من هذا أكف عن يسكتوا من هذا واحد مهم Soomaalida meesha joogto oo wasiga joogto waxaan dhahayaa isku duubnaada ilaahayna laga cabsado wadankeena ilaahay nabadgelyo noogu siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan muumin hadal fiican buu ku hadlay waxa kale oo halkan ka soo horta aad iyo aad waxaan mahad ugu celinaa ninka walaalkee oo meesha iska leh oo waxa weeyaan aad iyo aad noogu soo dhaweeyay meeshan waxa weeyaan inay ka noqoto hadii Soomaali weyn shirkaas ay wax ka soo baxaan asaga keenay shirki kastan oo waxa weeyaan meesha kale iyo halkan labadooda midba mar in lagu qabto meel kale oo aan leenahay male so halkan waa meesha kaliya oo opportunity nasiisay buuxda nasiisay oo aan arinta aan ku sameeysanayno meel kasta oo aan ku qabsan intaan meel aan ka yeelana ama ku soconayno meeshii nala eg aan imaanayna aan ka dhiganayna marka wiilkaas ilaahayga subxaanahu qaadir khayr ha siiyo annakuna waxa weeyaan waxaan ku dadaalaynaa sidii Soomaali isku timaado kulliguna wuu nala gartay ma sha Allah waxaan u hambalyeynayna sidii nidaamsanaad oo wanaagsanado wax nooga ogolaaday oo noo soo dhaweeyay hadda waxa kale aan u dhiibayaa microphone-ka waxa haddana ku soo dhawaata Umar Takar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markii labaad aan ku soo laabtay weeye waxa weeye xoogaa waxa galay mataqaana xamaasadda xagga dawladdeena Soomaaliyeed xamaasadeeda ay gashay marka waxa weeye war af Soomaaligi hala qoro oo darbiyada lagu dhajiyaa yiri hatta UK inaan ka bilaawno way marka Ingiriiska aan dhigno waa inaan hoosna ka dhignaa af Soomaaligi tan labaad dawladdeena waxaan ka codsanaynaa af Soomaaliga markay adkayso in ay noogu darto wilcaado lacagtana inay noo bedesho oo lacag Soomaaliya la keeno maxaa jira lacagteeni dollar baa meesha ka qaaday lacagtii marka waxaan rabnaa lacagtii Soomaaliya oo uu ku qoran yahay sida yani 16ka ya oo magaca Soomaaliya oo nin Soomaaliya uu saxiixay ayaan u baahannahay lacagteeni ciiday gashay marka waxaan rabnaa dalkeena inuu ilaahay uu nooga dhigo asagoo barwaaqa hadin nabadgeliyo ilaahay noo siiyo waxaan ilaahay ka baryeynaa in anagoo taqwadeena wadano wadankeena anagoo nabada inaan tagno wabillahi tawfiiq السلام عليكم قول عبد الله ومركي لوضع كسو نقناها هذا الإمام كما تقول محال كان وصو نقضاها يتاهي waxaan isku nimid kulankana markuu uu dhamaado waxa ka soo baxa waa baaq waxa ka soo baxa go'aano waxa ka soo baxa doorasho in wax la doorto oo kulamada kale oo soo socda dadkii ka sii ambiqaadi lahaa ama macnaha ay sheegeen wax sii dejin lahaa maadaama walaalkay Muuse oo kulankan asaga halkan uu qabtay oo intaasoo Soomaali ah oo degan Boorowgan Sootolo ilaa Yahays ilaa Yaharow oo isugu keenay in ay wax wada qabsadaan war aan isku nimaana aan tashanno Muuse waxaan ka codsanayaa kulanka inuu soo noqon mid caaw ku eg uu noqdo mid taxaana ah oo inta caaw aan isku nimid in ka badanna laga helo magaalada tan iyo xaafadda aan deganna maadaama loo baahan yahay waxa aan caaw ka dhawaajinay in laga miro keeno in la tuujiyo in aynu noqono dad waa inaynu helnaa hogaamiyayaal Cumar oo walaalkeen ah adiga oo Muuse ah inaad noqotaan gudi ka shaqeeya danaha iyo macnaha isku imaatinka
ummadda Soomaaliyeed especially magaalada xaafadda aynu joogno maxna isha South Hall taas waa codsi tan labaad shakhsiyan waxaan u soo jeedinayaa inaan ku hadla magacayga gurida Cabdullaahi Macalin waxaan moodaa wax badan inay soo noqonayaan dhibaatooyin ka dhacaya Soomaaliya dagaalada olaarta abaaraha badaha lagu dhamaanayo dhibaatooyinka naga haysta wadamada reer galbeedka ah luqad la'aanta luqadii oo macnaha isha nagu adag la qabsan la'aanta dhinaca hawada ah intaas oo dhan waa masiibooyin macnaha wadankan taagan waxaa loo baahan yahay ilmaha markay dhashaan waa la gardaadiyaa gacanta ayaa la qabtaa waxaan u baahannahay dad gacantana qabta oo nagu haga waa inaan loo baranaa siyaasadda reer galbeedka ah haddaynan la barana weligan waxaan fadhinaynaa halkan waxaanu noqonaynaa curyaamin si aan wax u qabsanno waa in dadka aynu la joogno aynu u ekaanaa assimilation aynu samaynaa luqadii aynu barannaa habka ay u dhaqmaan aynu fiirinaa waxaan ogaanaynaa marka wax naga qaldan ee waxaan u baahannahay waxaan markaas ogaanaynaa meesha aan rabno aan higsanayno marka muuse waxaan kaa codsanayaa in kulan ka ballaaran aad macnaha ii sheegto alla idmo aad macnaha inoo diyaarisaan adiga iyo maxaa lahaa ninkii halkan fadhiyo Cumar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana guuleed waa si fiican ayuu ugu hadlay oo ku dhaahan tahay nabadgelyada haddana Saciid ayaa mar labaad soo booday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax kale uga soo noqon hor innaga haddaynu nahay Soomaali ninkii hogaamiyaha oo soo baxa oo sidaa Muuse beri waa tii yaro afle Muuse way nagu gaamaya oo way nagu bilaabmaya haddana waa ka konto bisu keenay habeen dambe boqol buu keeni karaa ana iid xaasidnimada la iska daayo waa ceeb hebel baa wax doonaya hebel hadduu doonayo nin walba dadkiisa la duubto maga waxa weeye waa in xagga wanaagsan laga arkaa amuur kasta oo aynu isugu yeedhno xagga wanaagsan iyo Soomaalinimada loo raaco ma garatay wax qabsigeennana waa in aynu haddana guddigii baan kula dhisayaa xuquuqdeena raadin lahaa dhinacaygaan ka soo qorayaa raga aan ogahay hadday aan kugu daro inaad biyo ka keenaysaan ceelka aynu doonayno ma garatay adiguna waa mahadsan tahay adiga iyo inta kula shaqaysaba هذا لو باهية يعني حبسك أيك أو بدن دجال هذا أيك أو بدن لبعض هذا أيك أو بدن ما فاهم إنه وطن كان وطن قربا مركا فكرة هذا واحد كأورله أيه لو باهية horta aad baad u mahadsantiin wallaahi inuu markaad eegtid qurbahan Soomaalidu isma raacsana qabyaalad waxba ku kala dhex jira marka hadii anigu waxaan dhihi lahaa sidan in hadir ku jirno si maaha waxa haboon in dadka Soomaalidu inta isku yimaadaan tii ay noqdaan dad midaysan waayo waxa jira dad badan oo ajaanib oo inala degan dalkan marka Soomaalidu way ka duwan tahay sida umadaha kale Soomaalidu way ka duwan tahay marka Soomaalidu anigu waxaan jecelahay in ay noqoto hadad midoobaan oo hadii qof community furo qofkii la taageero aan loo eegin qabiil halkaas ka yimi hadii kala sidan dadku horumar buu baahan yahay takala jirta waxa weeye xitaa in laga fikro dhalinyartii wadankan inta badan waa 80% beertay galeen wada jeelashay ku jiraan ma garasa marka wallahi anigu waxaan oran lahaa waxaan ugu dhalinyarta dadkii ka waaweynaba sababay marka ma taan ilaahay baa dejin karay marka wallahi waxa haboon macnaheedu in dadka Soomaalidu ay bal mid noqdaan oo isku yimaadaan oo ka fikiraan ummadan yaryar aayahooda ma sha Allah inta soo oran lahaa waa soo gabagabeeyay waxa weyn xafladda hadda sidaas ayay noogu dhamaatay waxa kale oo xiga maalinta Jimcaha dambe soo socda inaan sidoo kale annakoo badan aan isku nimaadno oo qof walba uu ogaado yani barnaamijkan inuu dan aan leenahay danteena aan hiigsanayno kana saanay iyo waxa maanta alxamdulillah maantay wax danaho aniga gooni aan u wato ama waxa gooni iga halaabaya maanta ma jirto waxa weeyaan isku hadalaan nahay isku fikradaan nahay isku meel aan wax uga jeednaa hadda marka waxaan go'aanka ku soo gabagabaynaynaa inaan caajisin oo arintan hebelay tahay iyo hebelay tahay aan lagu riixin oo aan wada galno
sidaan hadda aan iskugu nimid aan wax u wada qabsanno taas waxa weeyaan ayaan jimcaha dambe waa ballaminayaa saxaafadda arrinteennana sidii inoogu soconaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay marka sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waa mahadsantihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin arrintan waxa weeyaan mar kasta waa mahadsantihiin cabdifitaax waa mahadsantihiin inkasta haddii diina hadashid cabdifitaax waa mahadsantahay haddii aan la yidhi amiin kulligeen waa mahadsantahay